dib u heshiisiintu waa hala wada noolaado wey ummaddu ha wada noolaato qof kaligiis noolaan kara ma jiro magaaladan kama maaranto gurceel kama maaranto balanballe kama maaranto xelaale cadaade iyo caabuq kama maaranto iyo maxaan ku yiraahdaa gaalkacay waa la isu wada baahan yahay marka in aan is ogolaano oo aan ogolaano inaan wada noolaano way waxa mustaqbalkeena ku jiro qof gaar u taagnaan kara ma laha dib u heshiisiintu waa process waa wax socda waa wax bilowda laakiin aan dhammaad lahayn maxaa yeelay bini aadan baa leeyahay khilaafaad waa imaan waxaa la rabaa caqligan halkan fadhiya odayaasha dhaqameedyada salaadiinta inay dhexdhexaadiyaan oo waxa wanaagsan ay kasoo dhex bixiyaan oo ummadda midayn kara ama isu keeni kara بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحفر حد وين نوعه كنت قديم هشيسيت هدي أنهاي هدي أنهاي أرجوينكي يو رقميدي كسر قيب قال شركة ديب هشيسينتا وهوش عم كل شيء بدل ما دلوت إن حالي أسوق بجبيني شركة ديب هشيسينتا ومدفعين ولا جلس وقيب قال وشركة اللوحري تدخل حالي وحي قصة حدين فرحت معايا لي مال آدي مهم أها عيال السوق جارسية طلعوا وجوه رئيس ديب هشيسينتا galmudug ayaa la soo gaarsiiyay waan ku faraxsanahay anagana waxaan dareemanaa saakay inaan hawl kala noo aaleen hadaan gudiga aan hawshayna dhamaysanay saaka marka ayaan waxa nacazumay madaxweynaha jamhuuriyadda madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxay ahayd salaan iyo bogaadin iyo kaftan iyo farxad ayaan iskula joognay arrimo waaweyn hadda laga hadlayo meesha ma yaalin hawsha inta hartay wasaaradda arrimaha gudaha hawshooda ayaa hartay ayaka ayaa la hadda wixii ka dambeysay la falgali doona marxalada labaad ama feeska labaad dib u dhiska iyo dabayeelida dowlad goboleedka galmudug ayaka la wareegi doona guddiyo kale ayaa hawsha qaban doona anakana waxaan dareemaynaa inaan hawshan ka soo baxnay madaxweynuhu noogu hambaliyay xaalna wuxuu guddoonsiiyay guddiga oo adama wuxuu guddoonsiiyay shahaado sharaf isagoo ku taqdiirihaya hawsha ay waqtiga gaaban ay ku qabteen subscribe saartid riix like sidoo kale riix gambalaalka digniintaasi markaan muuqaal soo gelin aad u noqotid qofka ugu horeeya ee daawada sidoo kale waxaan ku xasuusinaynaa daawada inaad sii sheergaraysid oo saaxiibadaada baraha bulshada aad kula sii wadaagtid sida Facebook, Twitter, WhatsApp, Google+ iyo dhammaan adeegyada kale ee baraha bulshada